xogana soo gaaraya waxa ay sheegayaan dastuurkii ina farole ee Soomaalida isku diray in la saxay haddana la meel marinayo dastuur ay Soomaali wada leedahay. annaga go'aansanay oo cidna marti ugu ahay warar badan baan waxaan maqlaa madaxda qaarkeed ka maqlaa Soomaalida go'aansan doonta nooc isu raacayso shakadaas waa been horaa loo go'aansan labadii kun iyo afartii la go'aansanay annaga go'aansanay oo cidna marti ugu ahay dastuurkaasoo ay ansixinayaan sidoo kalena wada meel marinayaan baarlamaanka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan oo qabiil kasta uu ku jiro. yacni dastuurkii ku meel gaarka ahay waa laga saarayaa dastuur ku meel gaar dalka. dastuur dhammaystiran ayaa la sameynayaa dhawaan. waxa awalba Soomaalida inta badan isku dirayay waa dastuur ummadda iska hor keenaya looguna talagalayba in uu Soomaalida isku diro. madaxda iyo mas'uuliyadahoodu kala ma cadda. madaxweynaha maamul goboleedka iyo midka federaalka kala ma cadda. sidoo kale dowlad goboleedyada awoodahooda iyo kuwa federaalku kala ma cadda. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha madaxa ayaa la isu gali jiray. waxa isu gali jirina waa dastuurkaas. xilli hore ahayd oo iskuul aan dhiganay markaan lahaa dastuurkan qabyada lagu metelay ee la qori waayay qof kastana daliishado markuu qalad samaynayo. macnaha qof kasta waa uu daliishanaya. midka dalka kala gooniya wuu soo daliishan karaa. cutub iyo qodob oo daliishada wuu ka helaya. waxaa lagu leeyahay maamul goboleedyadu ciday doonaan ay la heshii karaan. khayraadka dalka ama dekedaha hadday doonaan shirkada iska sii karaan ama dowlado kale kula heshii karaan. yacni ninkaas madaxweynaha maamul goboleedka asagoo ku xumeynaya madaxweynaha federaalka wuxuu u yeeranayaa cidda dowladda dhexe ay la heshii weyso oo dowlad shisheeye markii dowladda Soomaaliya heshii waayaan isagaa u wacanaya aniga ii imaw qiimo ka jaban aan kugu siinaa wax alla waxa federaalka uga baahnaa lahayd. waa fawdo ee ma aha dowladnimo. markii buugaas la qorayay dalka waxa uu ku jiray horta ku meel gaar. sidoo kale waxaa madax ka ahaa niman jamhada ah oo duurka ka yimid. madaxweynaha markaas uu jamhada u ahaa qori ku yimid meesha ayuu ahaa. haddana waxay u badnaayeen xitaa macal madaxweynaha kuwa waxbana qorin waxbana aqrin. hal maamul goboleed markaas jiray ayaa u fikiray madaxweynihii markaas joogay wuxuu raba soo qoray soo yiri bahalkan ama qaado ama kula shaqay maayo. wixii uu soo qoro iska qaatay isaguna ii soo qoro yiri ii keen anu ma aqaan dastuur waxa la yiraahdee sida xogta ku maqalnay. waliba dowladnimada Soomaaliya dadka ugu badan ee ka dhaqaaqay laada waa kuwii xilligaas buugaas qortay ama maamulka ku meel gaarka ka mid ahaadaan ama maamul goboleedkii qortay ka mid ahaadaan. waa iyaga 24 saac markii soo hadlaan waxay dhahan buugeeni 12 lagama tagi karo. madaxweyne kasta oo Soomaaliya yiraa waa u tartamayaan wuxuu ku ololeyn jiray waan dhamaystirayaa kuwii shalay ku ololeeyay waan dhamaystiraynaa ayaa hadda waxay leeyihiin lama dhamaystiri karo. buugii 12 weligeena aan iska haysano halkaas yaana ka dhaqaaqin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu ku mahadsan yahay maanta waxa uu la kulmay guddiga dib u eegista dastuurka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya u qaabishan. waxa uu sheegay in dowladdiisa iyo xukuumaddiisaba ka go'an in dastuurka la dhamaystiro 5 cutub ee wax laga bedelay. waxa uu sidoo kale sheegay in aan cidna looga heebeysanaynin in dastuurka Soomaaliya la dhamaystiro. dowladdiisana loo doortay in dastuurka dhamaystirto doorasho qof iyo codana ay qabato. marka dhawaan waxa la ansixinayaa 5taas cutub ayaa la ansixinayaa. dastuurka Soomaaliyana waa la dhamaystiraya. dad baa marka waxay ku leeyihiin qodobada la ansixinayo yaa laga heshiiyay. qodobada la ansixinayo baarlamaanka Soomaaliya shaqadiisu tahay inuu ansixiyo isagana ansixinayo. kii 2012 aad ku dhagantiin yaad kala heshiisan adinku cid laga heshiiyay yaqaan yaa laga wareystay. dowlad goboleedyada hadda jira oo dib ka samaysmay yaa wax ka weydiiyay lagama weydiin. laba nin oo markaas nin federaalka jooga waxna qorin waxna aqrin iyo nin maamul goboleed markaas jooga isaguna wixiisa soo malmaluqday isagu keligii soo qortay oo waliba cadaystay inuu isagu keligii soo qortay ayaa buugan qoray. Soomaali cid kala tashata ma jirto. waxa la sheegay baarlamaanka in uusan fasax gali doonin ilaa Ramadaanka dastuurkaas in la dhamaystiro mooyaane. golaha baarlamaanku waxa ay soo saareen gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare Cabdi Shacbaan Ibrahim gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Saacdiyo Yaasiin Xaaji iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad golaha shacabka mudane Cabdullaahi Cumar Abshir ayaa kulan la qaatay guddiga baarlamaanka labadiisa aqal
ee u qaabilsan iyo la socodka dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista hirgelinta dastuurka waxayna mas-uuliyiinta labada guddi ee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka dalka uga warbixiyeen howlaha la xiriira dib u eegista dastuurka ku-meel gaarka ah iyo in la dhammaystirayo dhowaan. Golaha baarlamaanka ayaa arrintaas soo shaaciyey. Waxyaabaha dastuurkani dhibaatada ku ah waxaa ka mid ah qodobadiisa dhanba inay iska hor imaanayaan oo mid maamul goboleedku u degsaday qodobadiisa qodobo dowlad madax bannaan oo kale ay u degsadeen maamul goboleedyada loo dejiyey. Sidoo kale kuwa federaalkana ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay xilli kasta isku dhacaan qodobo keenaya ayaa loo dejiyey. Ujeedka laga lahaana waxay ahayd Soomaaliya in la kala googooyo. Waxaan kaloo kala qeexnayn awoodaha federaalka, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka kalama qeexnayn. Xidda dastuurka ina farole oo xilligaas 2012 mar walba la sheego xuduudaha Soomaaliya waxa la leeyahay kuma xusna oo badaha iyo barinka xuduudaha Soomaaliya laguma xusin. Sababta loogu dan leeyahayna waa in dhulkan la kala jarjari karo oo ujeedka dhan oo loo sameeyaa wuxuu yahay in Soomaalidana madaxa la isu geliyo sidoo kale dalkaana lagu dhibaateeyo. waliba dastuurka haddaad akhriso awoodu ma sii saarayo midnimada Soomaaliya. waliba qodobada ugu muhiimsan oo meesha laga saaray oo xilligii 60kii dastuurkii 60ka ku jiri jiray waa midnimada Soomaaliya. qodobada waxa awoodda aad loo saari jiray midnimada Soomaaliya. laakiin dastuurkan midnimada Soomaaliya wax awoodda sii saari maayo xataa xuduudiisa ma qeexay. waxyaabaha dirta in laga sax kamid ah gudoomiyaasha goboltooradii iyo madaxweynihii waa isku title. adduunka meel kasta oo tagaan madaxweyne ayaa la leeyahay. waxyaabaha in wax laga bedelay muhiimka tahay. hadda madaxweynaha hadda joogay ra'iisul wasaaraha hadda jooga saaxiibo maadaama hore u ahaayeen wada shaqayntoodu way fududaatay. laakiin Soomaaliya dhibaatada ugu badan waxay kala kulmi jirtay madaxweynaha ra'iisul wasaare is haysta. marka dastuurka fiirsana wax awood oo kala qeexan ma jirto. madaxweynuhuna xaniiso fuuli karaa, ra'iisul wasaaruhuna sidoo kale dalka dhan qataata laga dhigi karaa. waxyaabaha dhibaato dastuurkan in ummada Soomaaliyeed looga dhigay uu yahay waxaad ku garanaysaa xildhibaanada shacabka golaha shacabka ama xildhibaanada ama senator ha ahaadaan ma xadadna xasaanadoodu. wax alla wuxuu rabo sameey karaa. dowladda shisheeye wuxuu noqon karaa qabaan isagoo xildhibaan ah. xadgudub uu sameey karaa, dad waxa suuqi karaa. waxaana lagu leeyahay xasaanadiisa lama taaba karo. waxyaabaha macnaha aad ugu xadgudbaya ka mid ah. dalku hadduu leeyahay dastuur dhammaystiran waxaa la yaqaanaa jihada uu u socdaa, la yaqaanaa qaabka xil wareejinta xilalka loo kala wareegaya, la yaqaanaa dalku xisbiyuu yeelanayaa, axsaab baa lagu kala baxayaa. wax aan shuruuc ahayna ma shaqayn karaan. inkastoo Afrikaanka lagu yaqaano inay sharciga jabiyaan, haddana ugu yaraan dee sharcigiiba hadduu marka hore qalqalloocan yahay, Soomaali iyo Afrikaan qalqalloocan ay madax ka yihiin, wax ka sii mushkilad. waxaa kaaga daran madaxda maamul goboleedyada waa dhibaatada ugu weyn oo dalka Soomaaliya ka jirta. dastuurkan ayaana madaxa isu geliyay federaalka iyo maamul goboleedyada. haddaba dastuurkan in la dhammaystiro adigu ma taageersan tahay? aragtida waa inoo muhiim. xagga hoose faaladan u reeb. Assalaamu calaykum.